habeen wanaagsan saqdhaxa wanaagsan soo dhawaada saaxiibayaal waa saaxiibkeen Cabdiqaadir Boos welcome back odagorta magaraad buu egyahay ma iimaan buu egyahay ma ugaas buu egyahay waaye intaas idin qusasee caawa shir cajiib ah bay mucaaradka isugu yeereen kaalayoy guriga Sheekh Shariif la dhoobay update kaasa waxa idin kaga hayaa maxaa ka cusub doorasho qof iyo cod update baa idin kaga hayaa xaajadii maad salaad iyo sambalosha halkee maraysaa ayadana update baa idin kaga hayaa he soo dhawaada caawa jiif ma jira xamar waxa waaye qof walba dhagta u taagan intiina update ka ah intaanan ogeynna wasgaarsiin doontaan marka waxaan rabaa intaan barnaamijka daahfurin inta hadda daawanay saaxiibada qaaliga ah bal u share gareeya kuwa kale ee barnaamijkan u ooman ama u baahan inay wax ka ogaadaan caawa mucaaradka habeenkooda wey hadda ogtiin hadii kale sida u socdaan aniga xamaraan joogaa meelaan ka fogeyn guriga shirka ka socda waa ka yimid waxa la dabacsan yahay waxa la rabo waxaan rabaa in ummadda Soomaaliyeed bal aan ka iibino horta dadkan mucaaradka say wax u rabaan dawladdu say wax u rabtaa dalka caawa ku maraya dagaha taagan kulli ummadda Soomaaliyeed wax kalena ma mucaaradka maxay soo wadaan macna waaya su'aal kala jirta mucaaradka awood ma leeyihiin dhaqaale ma haystaan doorashada ma fogay karaan ma soo dhaweey karaan maxay isbedel dawladdu ku sameey kartaa shirkooda caawa ayaa rabo qaybta koowaad barnaamijka inaan ka dhigo qaybta labaadna doorasho qof iyo cod halkay marayso dadna waa diidan yihiin ummad badanna waa rabaan update kaasna wax ka sii rabaan baashi xawaale oo taagan sanbalol shabacow mahad miniin la keena bacawga dagaalkan anaga waa ka baxeena arintaas waxa Allah yaa kaaga fatuxin taasna waa idinka qancinaya soo dhawaada mar kale وصاحبكين عبد القادر بوس وأضيف همسن علشان مقاهدة إن داونا عيان ذاتك الأفكار دون معناه ذاتك الدون وقف كستن أباهية إن عرفتي السياسة اللي قنعية وفهمت الصومة أنا الدولة اللي بدأ أسكت هاجر مدحوينها أسكت هاجر لكن كوا إجا صور جيدو أفكار السياسة أنا أقابل ديدن أيجن حكتو ماشان كوي مايان ومرة يتيري بس الشيء يا معناه تسوى لوا خير كبير اسمي ده من توه واي waxaan ka codsaa inta daawanayso barnaamijka inay share iyo love iyo like ku caawiyaan macna intaas ka codsanaa maadaama saq dhaxayd oo la maqaya de kaalintaada qaado adiga haddan ka iimaan shirka mucaaradkan ka nimid aniga hadda marka kuwa maqan kaalintooda gudo kuwa iimaan doonana waay barnaamijkayga waa daafuraya soo dhawaada Soomaaliya saad socoteen sanadkii ugu dambeeyay waxa lagu jira dawladda Soomaaliya iyo taaranka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud xaaladda hadda waxay maraysaa marka bariga dhexe maraysaa hadda la socotaan horta way ma soconay marka mucaarad bay waa qodob saamilay siyaasadda la baxay macnaha waxa jira ama loo yaqaanaba way la baxayaan waa loo yaqaanaba waxaa jira mucaarad kale oo maamul goboleedyaha sida Saciid Deni iyo ninka la yiraahdo Axmed Madoobe dawladda xisbiga ku dhawaaqday maamulada intooda kalena qayb badan oo kamidana dawladda ku biireen marka marxaladda hadda meel cusub karkaray maraysaa dawladdii hore farmaajo iyo tan waxay ku kala duwan yihiin farmaajo shib uu yirto afartiisa sano markuu dhameystay uu yiri qof iyo cod la aadaa markaas abuuq bilowday dawladda xasan waxay kaga duwan tahay marka madaxweynaha Soomaaliya iyo xukuumaddiisii oo waqtigooda aan la gaarinba baabuuq la bilaabo marka badbaado qarna la sameeyay iyo xabad ma la ridaa iyo qof iyo cod ma soconaysa iyo sheekada sarbayna kaga dhacay way madaxweynaha Soomaaliya sadootiin maalintii la doortay ayuu bilaabay inuu yeero rag asaga ka afkaar duwan ee mucaaradka uu yiri kaalaya dalka inta u jiheynaa sida hore kuma noqon karno halkee aadna dhabahay qaadna
أنا waxaan siinay madaxweynaha in laga arkaba wallahi markaan qiimeeyay xaaladdaanba madaxweynaha iska jilcan asagoo 3 bil jooga 4 bil meeqeed ma 5 bil ee buu u wacay waana qayb kamid ah dimuqraadiyadda oo beesha caalamka xataa ay leeyihiin laan dheeraata wariyaa kugu daalinay madaxweynihii iyo laba maamul goboleed waa isdaayeen inta kalena madaxweynihii iyo xisbigiisa galeen caawa maxaa soconaya marka su'aasha saas waa nimayo ana horta wax qarin maayo siyaasadana diin maaha qabiilna maaha waa fikir waay madaxweynaha wuxuu xal markasta u arkayay nimankan NCC la dhaho golaha wada tashiga qaranka maadaama ay sharciyad haystaan lafta gareen cali guudlaawe ninka la yiraahdo qorqor deni axmed madoobe iyo gudoomiyaha gobolka banaadir iyo matalaadaha kala maqanba in la heshiiyo oo meel la isugu yimaado ilaa saamilay siyaasadda lama qanci karo mid kasta kursiga rabaa saamilayda siyaasadda mar walba waa diidanayeen in denini kursiga la soo fadhiisiyo miiska wada hadalka axmed madoobena joogo hadday maqayin oo ku faraxsan yihiin cali guudlaawe qorqor la tuuro macnaha xasan sheekh iyo saamilayda inay hadlaan caalamkana ma ogola mucaarad dowlad ku qasbaya sida u socaleed macnaha laakiin dowladda dhexdeeda waa inay heshiin karaan sheekh shariif waxaa la yidhi laandheera tahay dee wax qarin baynu moogtahay nin abgaal baa tahay xasan adaa abgaal haddii maanta teeno la tago waaba haddii la tagee nin abgaala oo hartay abgaala tahay powerful baa tahay yaa ani powerfulkaas waa fahmi la abgaal ka adag waa sheekada soomaali ku sheegaysata moogtahay abgaal ka adag ma jiro anaa runta ku sheegaya hawiye ka adagna ma jiro qabiil ka adagna ma jiro wallahi ma jiro waxa la isku dulmay waa dowladnimada hadii wax adag iyo qoliyaha dowladda ka haysan adiga shariif mucaaradki iyo rag kale oo dalay ah iyo dowlad imaaraadka la yiraahdo ugu horeyso waxaa la yiraahdaa xasan sheekh ala dowlad karo inta baasha ma ka sheegayna moogta Soomaalidu baan daawanaysa boqolaal kun oo qof aan daawan doonto siyaasadda sideeda munaafaqad way ku jirtaa laakiin markasta ma soconayso boogay shariif adeerkay rayla khayr allah siiye waxaa la yidhi xasan wax u soco kara male haddaa adiga waagi farmaajan adaa isdhaafsiiyey kursiga xasan baa bannaanka soo istaagay adaa laandheero ah adigana hogaami beesaha ku qaata dooro qadiyad xumaha ku qaato siyaasad xumaha ku qaato ila ninka uu haysto waa in adeerkiis waa in adeerkii inkastoo siyaasadda aysan ilma adeer gelin haddana waa nin shisheeye iyo sokeeyaba ay ka dhaadhiciyeen abgaal kale ku dil wax la yidhahda kuwa badan oo tabar hayna waa ku daba safteen waayo yaa war idinku daalinay caawa guriga muqdisho uu ka degan yahay sheekh shariif baa la isugu yimi haddaa idin ka warrama asaa casuumad xasan cali khayre kaalay cabdiraxmaan cabdishakuur kaalay saacidow kaalay hebelow kaalay waay meeshaan siyaasad qaldan waxaa ku jirta siyaasad danjaros ah deni iyo axmed madow maxay u maqan yihin waa idin fahamsiinayaan shariif horta inuu siyaasadda waa leesgaadaa waa jar shariif inuu kaarka cabdiraxmaan cabdishakuur iyo xasan khayre iyo adamaba u arkay inuu ka marsan karee wuxuu aaminsan yahay xasan khayre iyo cabdiraxmaan cabdishakuur iyo adiga liidar u noqo madaxweyne horaa soo noqotay iyo intii ku daba feersanba gurigiisoo caawa ugu yeeray dowladda falcelin ma ka bixisay mucaaradka ma shiri karaan cid shii ku dhacda ma jirto cid xabad ku ridda ma jirto cid intee ku shiraayeen dhahda ma jirto cid inay wax bedeli karaan aaminsan ma jirto wadaba dhacad dowladda waxay ka aaminsan tahay wallah niman bunaysanaayo oo guriga shariif joogo oo agoonyar marti u ah oo cambuuladoodu cunaayo inay yihiin horta la aaminsan yahay ilaa niman sharciyad haysta maaha maxay taagan yihiin marka bal si fiican Soomaaliya ii dhageysta wuxuu adduun iga qora waxay taagan yihiin waa in la xabadeeyo habeen kasta guriga ku shiraan guriga cabdiraxmaan cabdishakuur tagayaan soore ka soo cunayaan waa baxayaan shariif u tagay cambuule ka soo cunayaan shariif sakiina mar u wacay wuxuu ugu sheekeynaa beerihii baayi bakool niman iska qaxweeyo oo iska baashaalo oo jasiira dadka ragga fadhiya waxba ka duwaneen bay dowladda horta u yihiin mucaarad xisbi leh oo diiwaan gashan ma jiro waayo yaa marka maxay taagan yihiin war dowladda markaan xabad ha soo rid dowladdan xasan sheekhne tii farmaajo ma aha qof kaa afkaar duwan xabad ku rid